horta ninka la yiraahdo xaliye ee baraha bulshada aadka lagu hadal hayaa isagoo u cilmiya garac miya talow mise xagga maskaxda ayuu ka jiran yahay mise wax kale ayaa jiray ba isaga ayaha kumaanka kun ee habla Soomaaliyeed meel kasta jooga ma isaga wada maro jilibka wada mariyay ma isaga wada dhiliyo wada garciyay oo ka ilma dhalay mise isagoo ayaa yaqaano oo inta ka ag dhow ee qaraabadiisa ah iyo ehelkiisa ah anigan doonay inaan duro ayuu isagu u jirib dhigay oo deeto wuxuu moodayaa noloshu inay sidan tahay oo qof kastaaba inta ku xeeran uu u jirib dhigay isagu deeto wuxuu sidaa awgeed u leeyahay ma jiraan hablo dhulka jooga oo habla ah oo Soomaaliyeed bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ومركلي يدقلكيني أي نقول هين مريكتي يوتيوب إسماعيل سيد فضل هذا كل عصبت هاي channel كسر لو سبسكرايب لها كمل كانوا فرو فيديو كان لا يقرأ تهرون نوري شوكتين وأدبض ما تسنت هاي بس وشي برواقين معي برا رجيني ملك استدفاع دون كشوكتان آخرنا channel فردوس على هنقول عسلو مدمان تيمبا إن وحندونا يا مان تهنا كهالله برنامج جرو كريس يقول نقضي أو سيرو لما فيلانا يقول صوب بودي قرويد anigoo muuqaaladiinii hore aynu ku ballan qaaday ahaa inaynu maalmo soo gelino qaar ka mid ah diyaarsanayo iskaga dhex jira ayaa arrin yar oo kaliis ugu noqotay baan arkay marka waxay ila noqotay ama ka farsamo waxa noqotay in aan wax ka idhaahdo oo qaadan waana way ila noqotay arrintaasina waxay ahayd horta ninka la yiraahdo xaliye ee baraha bulshada aadka lagu hadal hayaa isagoo u cilmiya garac miya talow mise xagga maskaxda ayuu ka jiran yahay mise wax kale ayaa jira mise dadka la yiraahdo irbad baa lagu duray mise waa mid kale ee talow qof Soomaaliyeed qof muslima ma aha marka labaad qof Soomaaliyeed ma aha ee waa qof nooc kale ah leegama baranin ugumana talagelin leegama baran doona insha Allah in aan qof cirdigiisa wax ka sheego noloshiisa wax ka sheego kana uguma talagelin in aan cirdigiisa ku duro ama sharaftiisa wax yeelo ama qaraabadiisa iyo ehelkiisa aan maxay ahayd tolay dhaleeceeyo ama aan isaga sharaf ahaan u dacniyo waxa kaliya ee aan abaarayan ka hadlayaa waxa weeyaan ficiladiisa iyo qowlkiisa oraahda wuxuu oranayo iyo waxa uu ku kacayo uu falaayo labadaas uma doonaya bal inaan eego iyadoo markii hore waxa uu baraha bulshada ku soo galay ee lagu bartay ahayd inuu hablaha Soomaaliyeed gadaafeeyo ama afjigo ama maxay ahayd tolay sharafteeda meel kaga dhaco oo aanay waxaan u qalmin u yiraahdo iyadoo dadka qaar ay u arkayeen wuxuu ku hadlayaa inay wax wanaagsan yihiin oo ay kuba taageersanaayeen ama ay ku garab joogeenba hase ahaatee eriyaha qaar la qaadan kara way ku jireen laakiin boqolkiiba 99 waxay ahaayeen wada gadaafo iyo wada aflagaado iyo milgame laga dhacayo ah iyadoo taa la ogaa oo dadka wax ka yidhi ay iska koobnaayeen ayaa hadda mid aan la qaadan karin loonana fadhiin lagana filahaynin horena aan qof muslima gaar ahaan Soomaaliyeed aan laga maqal uu la soo baxay goor uu duubay inuu klibka ma garanayo iyo goor uu soo galiyay baraha bulshada hadda ayuu ma arkay anigoo ku dhex jira baraha bulshada ayuu klibka aan la kulmay klibku wuxuu oranayaa wuxuu leeyahay dad guursatay ina Soomaaliyeed adigoo wiil Soomaaliyeed ah oo sharaf iyo kamaan leh haddaad guursato ina Soomaaliyeed oo milgay iyo sharaf la hor soo korsadeen hooyii aab dhaleen oo walaal la dhalatay ubadka koobaad ilmaha koobaad ay ku dhasho waa ina marka uu dhasho ee dhakhtarka la geeyay hooyada ku umushay ilmaha dhasha wuxuu doonaa ahaadee aad soo eegto ilmaha identitygiisa huweediisa muxuu yahay aqoonsigiisa DNA-giisa inaad eegto ilmaha ma adiga ayaa ilmahan dhalay mise gabadhan ayaa hore u soo biqlisay oo wixii ay hore u soo kaydisay biqilkiisiiba hadda midho dhashay oo cid kale waxaan iska leh waxyaabaha aan la qaadan karin uu ku hadlayo ninkaas wuxuu ku leeyahay inan kasta oo Soomaaliyeed oo aabii hooy dhaleen oo guri joogta oo gashaanti maxay ahayd oo lagu og yahay gashaanti ma aha oo maxay ahayd oo ahaanteed baa holoftay oo rag bay free ku siisay wax adiga lacag laga siinayo mid aan la yaabay waxa weeyaan meesha uu jooga meel ummad islaam joogta ma aha miya meel ummad Soomaaliyeed joogta ma aha miya cid ehel iyo qaraabo uu leeyahay oo qabanayso looga ashkatooda hadaan isagu la qaban kareen wax kale ku gadaaman yihiin ama wax kale ku xeeran yihiin ama wax kale oo deegaar kale iyo heegan kale leeyahay oo laga ashkatooda ma jirto miya meesha uu jooga adduunkan ay joogno korkiisa ma aha miya ee waa meel kale uu ka soo hadlayaa oo qaarad kale wuxuu ku nool yahay isagoo meerahan ku nool meerahan ahayn buu ku nool yahay oo ardaygan dhulkan joogno meelaan ahayn buu joogaa meeshu san uga soo hadlaayo hablaha Soomaaliyeed uu leeyahay inan gashaantiyo oo gudaheedii uu Ilaahay u sameeyay sidoo ugu tala galay ah ma jiro ilaa iyo haday jirtoon la heli maayaba emir iyo laba toona ma aha uu leeyahay ba isaga ayaha
kumaanka kun ee hablo Soomaaliyeed meel kasta jooga isaga wada maro jilibka wada mariyay isaga wada dhiliyo wada garciyay oo ka ilma dhalay mise isagoo ayaa yaqaano oo inta ka agdhow ee qaraabadiisa ah iyo ehelkiisa ah anigan doonay inaan duro ayuu isagu u jilib dhigay oo deetu wuxuu moodayaa noloshu inay sidan tahay oo qof kastaaba inta ku xeeran uu u jilib dhigay isagu deetu wuxuu sidaa awgeed u leeyahay ma jiraan hablo dhulka jooga oo hablo ah oo Soomaaliyeed waxaan dhammaanba ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waayeelkeeda iyo keeda gaboway iyo keeda dhashay iyo keeda dhalinyarta ah iyo keeda aqoon-yahanka ah iyo keeda jaahilka iyo keeda reer miyiga iyo keeda reer baadiyaha iyo keeda reer magaalka ahba aan inta dhawaaq dheer ugu diraya kamaanan daba hadhi doono inta uu kelmadda ka soo noqonayo ama waajibkeeda laga marinayo kana wuxuu noqon doonaa kii koobaad ee aan kaga hadlay sidaan ku deyn maayo inta uu maxay tole ka soo noqonayo ama waajibkeeda laga marinayo hablaha Soomaaliyeed kuwii miyaanay ahayn marka jidhkooda meel kamid ah la soo taabto ay soo gaadho gacani ama gadaafo loo geysto ama afxuma lagu yiraahdo kuwii dhiigu heerafi jiray ee dagaalka iyo gulufka halka ka bilaabmay ee la isku qaado aan weligii dami jirin kuwii qudha loo goyn jiray miyaan ahayn hablaha Soomaaliyeed kuwii sharafta lahaa miyaan ahayn sharaftoodii meeday hablahuna aad yaro dhalatay intuu soo fadhiista aaladda wax duubta uu ka leeyahay caynka weeyaan dad bay deebar la dhasheen oo dagaalamayo dhiig iyo dhiidhi u lahaa maantana dee dadku inbay u dhasheen ay ka soo jeedaan diintoodii dhaqankoodu wanaagsanaa bay leeyihiin kuwii markaa noolaa iyo kuwa maanta nool kala kaar miyaa kuwani waa qaar miyaa waxyaabo kala ahaan dee dad caadi ahayn oo bombala oo marka si la doono loo jeejiyo sidii doono looga hadli karo kuwii lagu rogman jiray adduunyada inta xagga kale laga rogo maxay ahayd toolay balaala ka eedaami jiray maan ahayn ee bilaawuhu dhiiga dhadhami jiray mise waa kuwa kale oo dee gacan ku samaysa iyaga laftood marka sidan lagu leeyahay maqlayaan ay arkayaan kama dhiidhiyaan miya waa inoo wax lagaga soo jawaabo fiidiyogeegan iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh